waxyaabihii jimanka ahaa iyo waxyaabaha ee dadka ka dhex qayliyay ama dhigka ka dhiciyay inay aad u yaraadeen meesha kalaamka ilaahay uu ka baxayana waxa macruuf ah shaydaankiina uu ka cararaya waxa ku soo degaysan naxariistii ilaahay qofku deganaan iyo xasilooni ayuu helaya ta kale daba meel quraanka ilaahay lagu akhriyo oo uba soo dhawaan maayo jinka yeesha guriyihii naxariis baa ku soo degaysa oo quraanka meesha lagu akhriyo raxmad baa ku soo degta gurigii lagu aqriyay wuxuu helayaa raxmadiisa ilaahay waxay inoo noqotay naf xasilin waa waxa kaliya ee marka aad degaysato qofku uu ku dego oo arkayso isagoo qofku idminaan iyo deganaansho ay tilmaamayso dadkii xanuunsanayay laftooda ayaa dhageysanaya ku caafimaaday mid ka mid ah carruurtayda oo sas jirtay markii aan waday shidnayd samaacaddu waxay joojisay inay sasto habeenkii hadasho waxyaalo badan oo iga maqnaa iyaan aad iyo aad uga faa'iidaystay oo intuu ku shubtay moobilkiisa iska dhagaysta oo isagoon garanaynin qaara oo maanta qaari ah anigu habeenkii iyadoo ii baxaysan seexdaa maalinta iyo habeenkaba saataan ugu xidhmahay mana daayo ilaa waqtigaygu gaadho mooyaane ka daali maayo 8.6 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب maalinimo khamiis ah labadii bishii Ramadaan sanadii 1434 tirsiga taariikhda hijriga ee islaamka oo ku beegnayd 11kii bishii toddobaad sanadii 2013 geyga Somaliland waxa laga hirgeliyay idaacad nooceeda tii ugu horeysay ee Jamhuuriyadda Somaliland ay yeelato idaacadda Quraanka Kariimka ee Radio Hargeysa madaxweynihii waqtiga ee Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa xadhiga ka jaray idaacadda Quraanka Kariimka ee Radio Hargeysa oo hoos timaada wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka ee Jamhuuriyadda Somaliland bismillaahir rahmaanir rahiim ya rukul kitabuna idaacadda Quraanka Kariimka waa loo baahnaa wasaaradda warfaafinta waxaan ku hambalyeeyaa idaacadda Quraanka Kariimka ee Radio Hargeysa waxa laga dhageystaa caasimadda Hargeysa magaalooyinka Burco Boorama Berbera ceeri gaabo laascaanood iyo gabiiley mar walba nasiistu waxay nafaraysaa inaan ku dadaalin kaliya labadan qaybood aynu ka koobannahay jirka iyo ruuxda cunnada jirka qura inaan ku dadaalin cunnada iyo quudka ruuxdana aynu ku dadaalo oo alla ka cabsiga iyo diinta iimaanka markaas ilaahay wuxuu tilmaamay intuu aadan dhammaystiray inuu haddana ruuxdii ku afuufo wuxuu nasiiyay dareenayaal iyo awoodo waaweyn oo aad u yaab badan waa qalbigii iyo madaarigtiisii qalbigii iyo anteenooyinkiisii iyo waayiradiisii wax u soo qabanayay ama garaadkii iyo garaadka wixii kabayay wajacala lakum samca walabsaara walafida waa maqalkii iyo araggii iyo qalbigii iyo garaadkii idaacadda Quraanka Kariimka ee Radio Hargeysa waxay leedahay qaab baahineed gaar u ah oo ku tacalluqa quweynta iyo horumarinta diinta islaamka madaxa idaacadda Quraanka Kariimka ee Radio Hargeysa Maxamed Axmed Cabdilaahi Shabeel ayaa tafaasiil ka bixinaya qaabka ay u shaqeyso idaacadda Quraanka Kariimka ee Radio Hargeysa iyo qorshaheeda mustaqbalka idaacadda Quraanka Kariimka Jamhuuriyadda Somaliland Radio Hargeysa oo ah idaacad qiimo weyn qarankan ugu fadhida waxay jirtaa hadda ilaa 7 sano iyo badh waxaanay tahay idaacad 24 saacadood hawada ku jirta oo marna aan ka bixin waxa laga dhageystay magaalooyinka xarumaha waaweyn ee gobolada dalka waxaanu sii deynaa Quraanka Kariimka iyo barnaamijyo diiniya maadaama lagu talagalay quweynta iyo kor u qaadida Quraanka Kariimka iyo diinta waxaanu sii deynaa culimo quraaya oo ku xeel dheer akhrinta Quraanka oo loo daba fadhiisto isla markaana cod macaan oo dadku ay aad u jecel yihiin waxaanu sii deynaa barnaamijka tafsiirka Quraanka Kariimka iyo barnaamijka su'aalaha diiniga
dariiqa toosan waxyaabaha sii deynaa waxa kamid ah oo kale eedaanada salaadaha marka la gaaro bisha Ramadaan ee barakeysan waxaanu sii deynaa barnaamijyo live ah taraawiixda tartamada Qur'aan Kariimka ee tartanka dalka iyo tartanka madaxweynaha waxaanu sii deynaa isla Ramadaan taasi barnaamijyo kor lagu qaadayo soomka cibaadada oo dadka aad loogu wacyigelinayo idaacadda waxa ka shaqeeya shaqaalaha hawlkara oo khayrka jecel isla markaana u adeega diinta Ilaahay iyo kitaabka Rabbi subhanahu wa ta'ala aad iyo aad baan u mahadnaqayaa mas'uuliyiinta sare ee wasaaradda warfaafinta si ay ugu dadaalayaan in idaacaddan ay kor u qaadaan baahinteeda sidee bay shacbiga Soomaaliland ugu xidhan yihiin dhageysiga idaacadda Quraanka Kariimka maxayse ka faa'iideen waa kuwan qaar ka mid ah shacbiga reer Soomaaliland ee ku kala dhaqan gobolada kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland idaacadda Quraanka aad iyo aad baan ugu xidhannahay wax ka weyn ma jiro waa kalaamkii Ilaahay wixii aan odhan lahaa dee Allah baa halkan noogu warramo inamadana ay dhageysanayeen qoladiina ka shaqaynaysa iyo Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxay inoo noqotay tacliin ay wax ku bartaan ubadkii iyo waayeelkii taas oo sugta carabka qof kasta oo quraanka yaqaanay inuu sidii ugu saxsanayd ugu dhawaaqo quraanka una akhriyo una dhageysto waxaynu kaloo aad iyo aad uga faa'iideysanay inay u noqotay wehel qof kasta oo guri jooga ama gaadiid marka guri lagu jiro wa quraan baa lagu akhriyi jiray culumaa loo dalban jiray si jinka looga eriyo meesha quraanka lagu akhriyo inaanu maaragtay aanay wadaagay taasi waxay noo keentay halkii markii hore lacag ay ku bixin jireen guryaha iyo reeraha iyo dadku in isagoo bilaasha uu inala joogo guryaheena ka xigta uun idaacadda inaad wareejiso waxay inoo noqotay naf xasilin waa waxa kaliya ee marka aad dhageysato qofku uu ku dago waxaan quraanka u qastay isagoo oo wadankani idaacadda ku yarto Djibouti baan ka soo qaatay maartayay raadiyo han quraan ka dhageysto ilaa daraartii han ka soo baxay kan imika boorama ka imanaya Hargeysa baan la sii dhacay imika waxaan dartii u iibsaday idaacaddii anoo kolkaas sideen intaydii ka imaday ma sha Allah ma kan waxaan ku faraxnaa markuu quraanku soo galo aanu idaacadda Quraanka Kariimka waxaan ka bartay mashaayikh kala duwan iyo codad waliba tan kala duwan waxaan ka dhageystaa quraanka kulay aan ardayda ilaan maalin walba quraan baa laga doonaya ka soo baxaa waan ka dhageystaa waan ka marsadaa haddaan ka mid ahayna ardayda markiiska Gabiley horta meeshan TV waxaan daawanaa nooma yaalo waa quraankaas ma dhageysanaa shaqadeedu waa waxbarasho marka idaacadda Quraanka Kariimka wallahi faa'iidooyin badan bay anaga noolahay marka barnaamijkan waxa ku xiran dadka luqadda Soomaaliga kala ku hadlo dhan baa ku filan ayaa ku xiran oo noloshooda ka faa'iida waa barnaamij qaali ah oo qiimo badan u leh bulshadeena u leh oo ay ku baranayaan maaragtay Quraanka Kariimka iyo sunnada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam sida daraadeedna waxa kale ay ku baranayaan inay kaga jaahil baxaan wixii aanay garanayn sharciyan oo ku nafisnaa quraanka tasfiirkan ka dhageystaa cilmi fara badan baan ka faa'iideysanay markii horena quraanka ahayd oo adigoo maanta horna soo daalayo shaqo ku soo daalayo dabeetana ka soo baxay ayaad soo galaysaa gaarigaaga iyo mise quraankii ka baxayo waxa weeyaan wax Ilaahay loogu xamdiyo idaacadda waxaanu ka faa'iidnay quraanka dhageysigiisa si fiican baan wax xafidnay caruurtana way ka faa'iiday dhageysigaanu ka faa'iidnay ma sha Allah inagayno uu yahay iyo sagaashan idaacadda quraanka ayaan ku xidhmahay maalinta iyo habeenkaba saataan ugu xidhmahay mana daayo ilaa waqtigaygu gaadho mooyaane ka daali maayo hadday tahay tafsiir iyo hadday tahay su'aalaba raadiyowgaana waan ka dhageystaa habeenka iyo maalintaba tafsiirka in alla intii la bilaabay maanta mid ka mid ah carruurtayda oo sas jirtay markii aan waday shidnayd samaacaddu waxay joojisay inay sasto habeenkii hadasho guriga naxariis badan baa laga dareemayaa markaste quraanku ka shidan yahay waxaan aaminsanahay inay tahay idaacadda marka wax weyn ugu saameynta badan leh dalkeena gudaheega waayo waxa lagaga baxay runtii jahli badan oo qofkii aan masaajidka xataa xaadiri kareynin markuu idaacadda quraan uu maqlay sameynteedii sida ay ugu xidhnaayeen bay ilaa hadda cashirka maalinna nama sheego 4 galabnimo noo soo gashaa hatta maalin haddii uu si hawl kuugu dhaafo
waxaan rogaal celin ku dhegaysanaa 9 iyo barka fiidnimo ayaan ku dhegaysanaa qaybta kalena xagga su'aalaha diiniga oo dadku ay toos u soo wacaan maadaama maalinta salaasadaan macallin ahay oo iskuulka dhigo maalinta jimcaha ayaa si fiican uga dhegaystaa subaxda 9ka idaacadda iyadoo su'aalihii sheekhla aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan nahay ardaydiisa magaalooyinka kala duwan jooga waxaan ka faa'iiday waxyaabo aad muhiimsan in quraanka iyo kale markaan akhriyo in marka dambe ku soo cusubaan ku xiftiyo sidoo kale in ku raaxaysto codka macaan quraanka sidoo kale waxyaabo in dadka bulshada kale ama qoyska ay kula nool in iyagana intaan sabacadu siibiyaan si dhageysiyo kadibna bulshadu noqoto kuwa kooda xidhan quraanka salaada si rugniga salaada sida loo daryeelo sakada sida la isaga sugay loo bixiyo sadaqada oo saddexaad ah ilaahay in lagu xidhnaado markii kastaba la xusuusnaado dad badan baa xitaa quraanka ka bartayba oo intuu ku shubtay moobilkiisa iska dhagaysta oo isagoon garanaynin qaara oo maanta qaari ah qaar badan oo waxyaalo kale ku mashquul ahaan jiray oo dhagaysan jiray oo dhagaha ay wax kale ugu jiri jireen iyo heeso iyo xasan muusig iyo waxaan loo baahnayn oo sharcigu nacay ayaa maanta quraanka kariimka ah dhagaha ugu jira oo dhagaysanaya oo ruuxiyan iyo nafsiyanba ku noolaaday diiskaan dhagaystaa sheekh tir baan dhagaystaa taa waxyaalo badan oo iga maqnaa iyaan aad iyo aad uga faa'iidaystay oo ka xadiiso xagga maxay ahayd salaada xagga maxay ahayd in wax walba waan ka faa'iiday aad marka aad baan u dhagaystay habeenkii marmar baan markaan seexanayo aan quraanka aanan baqtiinba oo aan anigoo hurda uu iska baxayaayo aan ma garanaysaa dee aan aad bay naftayda uga helaysaa marka waxa weeyaan aad iyo aad bay idaacadaasi aan u saameynteeday leedahay waana idaacad quraan oo kariima waa idaacad aad iyo aad aan ugu bogaadinayo dadkii aasaasay ee dalka keenay hadda quraanka kariimka waa muhiim waa lagama maarmaan waxyaalaha laga faa'iiday waxa ka mid ah dadkii xanuunsanayay laftooda ayaa dhagaysanaya ku caafimaaday waxqabadkeedu waa aad u muhiim xaggii quraan dhagaysiga dadka xanuunsanaya dadka buka dhalinyaradii faraha badnayd ee muusig dhagaha gashan jirtay ayaa waxa imika aad u isticmaalaan quraanka kariimka waxaan ka faa'iideyn kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dejiyo ku dagoon ku xasilo waana idaacad runtii qiimo badan oo buu ku soo kordhisay gobolka inay dadkii quraanka ka faa'iideystaan culimada diinta islaamka ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka xog waramaya ahmiyadda iyo faa'iidada weyn ee dhaxalgalka ee idaacadda quraanka kariimka ay ka dhaxleen ummadda islaamka iyo walibana waxyaabaha muhiimka ee idaacaddani ay leedahay gurigii in lagu shidayo oo dadka qaarkood ay aad u jeclaysteen iyagoo xataa hurda inuu quraanka iska baxayo meesha kalaamka ilaahay uu ka baxayana waxa macruuf ah shaydaankiina uu ka cararayaa sidoo kale waxa ku soo degaysa naxariistii ilaahay ayaa ku soo degaysa waxyaabaha ay soo kordhisay waxa kamid ah dadka qaarkood inay ka baranayaanba quraankii kariimka ahaa oo sida loo akhriyo dhalinyarada yaryar had iyo jeer carruurta yaryar aad bay u koobi gareeyaan codka marka iyagoo xiisaynaya quraa'ada kala duwan ama shuyuukhda akhriya ee kala duwan ayay kitaabkii la soo baxayaan fayatamathalu bacduhum qaarkood baa markaa isku egeysiinaya sheekhan isaga sidiisiina u akhriyaan marka waxay nooga soo baxday talqiin fiican in laga helay oo habka loo akhriyo quraanka tajwiidka wanaagsan inay mid kamida noqotay waxyaabaha runtii ay soo kordhisay idaacadaasi aad bay u badan yihiin waxa kamid ah iyada oo de su'aalihii diiniga ahana ay ka baxayaan tafsiirkiina uu ka baxayo marka quraanka dhagahana waa lagu safeeyaa qalbigana waa lagu safeeyaa de kalaamkii ilaahay buu si joogtaa u dhageysanaya oo u dhadhaminaya oo uu dhuuxaya ilaahayna taa uu nafaray ama uu inagu abaabulay markii uu yiri kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaru aayaati waliyatadhakkara ulul albaab waa kitaab barakaysan oo soo dejiyay baa ilaahay waxaan ugu talagalay dadku si ay aayadihiisa u dhageystaan oo ay u dhuuxaan oo ay u dhadhamiyaan marka lama soo koobi karo faa'iidooyinka uu leeyahay kalaamka ilaahay waa aad iyo aad bay u badan yihiin waana horumar dhinaca khayrka oo aynu samaynay idaacadda quraanka intii la furay aad baa dadku wax badan uga faa'iideen hadday tahay qiraa'aadka ay soo jeedinayaan ee culimada akhriyaya ay soo jeedinayaan oo si fiican barnaamijka quraanka uga baranayaan haddii ay tahay barnaamijka dariiqa toosan ee subaxii isaguna maalinta jimcaha baxa fadiilad sheekh dirir uu soo jeediyo aad iyo aad baa looga faa'iideystay oo looga faa'iideystay xataa culimmadu waxa ay sheegeen oo kale
waxyaabihii jimanka ahaa iyo waxyaabaha ee dadka ka dhex qayliyey ama dhega ka dhiciyayey inay aad u yaraadeen taana loo tirinayo barakada qur'aanka kariimka oo aqal walba laga akhriyaayo horta runtii culimmadu ma wada gaari karaan oo masjid walba barnaamijka lagama fidin karo sheekh walibana barnaamijka ma wada fidin karo laakiin waxyaabaha ina wada gaaraya waxa weeye idaacadda qur'aanka kariimka ah barnaamijka ka baxaya hadduu yahay qur'aanka hadduu yahay mawaaciidda hadduu yahay iftaha sheekh dirar oo kale ay soo jeedinayaan in aad loogu xidhmo oo rasuulku sheegay salawaatullahi wasalaamu caleyh khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama dadka waxaa ugu khayr badan qofka qur-aanka barta dadkana sii bara xadiidka marka la eego idaacadduna waxay noqonaysaa idaacadaha ugu khayrka badan waayo waxay sii daynaysaa ama ay tabisaa oo ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkiisii faa'iidooyinka iyadaaba mucallinaba oo dadka ciddii qur'aanku wax ka taqaanay markay idaacaddan dhegaystaan kitaabka qur'aankana ay soo qaataan ayaga ayaa dib uga bartaba qur'aanka waa barashada koow waana ta ugu muhiimsan way ka baranayaan carabkii ayay ka saxayaan maaragtay ka sax waxa idaacaddani ka marag tahay waddanku inuu yahay dal muslimiina dad islaama inuu yahay oo diintooda jecel oo diintoodii wax colaada iyo wax nacayba aanu haynin maadaama ay maalgelinayaan oo la wado oo laga shaqaynayo tabinta idaacadda lana ilaalinayo waana idaacad aad u qiimo badan wax tashuusha ma laha waayitaan ma laha waana waxa qofku saaxad walba u heli karay kana faa'iideysanayo waxa dheer inta duruusaha kale laga faa'iideysanayo aadaanka xilliga salaadihii laftigeeda door bay ku leedahay waxaan aad ugu mahadnaqayaa mas-uuliyiinta idaacadda iyo howlwadeennada ka shaqeeyaba waayo inta badan wax dhaliila ku arki maysid xilligeeda hadday tahay taamkeedu waa waqtigii loogu talagalay nidaamkeedu wuu fiican yahay wax galdoloola ah iyo wax dhiba oo ka muuqataana ma jirto qur'aanka kolkay aqrido meelaha lagu aqriyayo guryaha ka mida guryihii kolkay ku aqrido idaacaddii qur-aankii ama lafdiha aqrido ama macnaha aqrideen guryihii naxariis baa ku soo degaysa oo qur-aanka meesha lagu aqriyo raxmad baa ku soo degta dee gurigii lagu aqriyayey wuxuu helayaa naxariista ilaahay ee qur-aanka aqrintiisa laga faa'iidaya buu qayb ka helayaa ruuxan dhagaysanaya ee maqlaya uun yacni kolka la faro uun maqlaya isaguna maqalkiisana uu uga faa'iidaysanayaa waxaa kale oo faa'iidooyinka ka mid a laga helayo dadku intuu waxyaalo kale heesaa la dhegaystaa waxyaalo aan macno lahayn baa la dhegaystaa meelihii bay idaacaddani soo gashay oo ilaahay inoogu soo bedelay meeshii waxa aan macno badan lahayn laga dhegaysanayay ayay idaacaddani inoo soo gashay kolkaasaa shay macno ah oo faa'iida oo kalaamullaahigii ah oo xagga minallaahi qaali ka ah ayaa ilaahay inoogu soo bedelay alxamdulilah waa nicmo weyn weeyaan nicmo weyn weeye meeshii wax kale laga dhegaysan lahaa dadkii yaryaraa ee waxyaalaha saasa qabsan lahaa ee wakhtigu kaga lumi lahaa ayaa qur-aankii lafdigiisii iyo tafsiirkiisii iyo khayraadkiisa ayay u gelayaanoo dee taasaa iyaduna faa'iido gaar ah ayaa faa'iido gaara inoo ah kolka wax la koobi kara maaha qur-aanka faa'iidadoy idaacaddu inoo leedahay wax la koobi kara maaha haddaynu nidhaaho aynu ka sheekayno awqaad badanba ayay u baahnaan lahayd laakiin wakhtiga aynugu yar koobane intaa yar ee kooban baynu ku daysanaynaa ilaahay baana mahad ku leh ilaah idaacaddaa inoo keenay ee ina makan siiyey ee waddanka inoogu sameeyey ilaahayaasaa mahad leh intii arrintaa ka soo qayb gashay ee sababta u noqoteen allah ka ajrisiiyo xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay tacab badan gelisay horumarinta diinta islaamka waa maxay qorshaha horumarineed ee wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka ee jamhuuriyadda somalilan ee ku saabsan horumarinta diinta islaamka gaar ahaan idaacadda qur-aanka kariimka waa kan agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka ee jamhuuriyadda somalilan mudane mukhtaar maxamed cali xukuumadda jamhuuriyadda somalilan
ama wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta qorshaha uga yaala idaacadda qur-aanka kariimka waxa weeyaan fidinta diinta islaamka in la gaadhsiiyo bulshada islaamka ama shacbiga Somaliland goob kasta degmo kasta iyo meel kasta oo ay ku nool yihiin ay ku sugan yihiin inay u gaadho ku helaan barashadii diinta islaamka oo bilaa lacaga inay ku helaan meeshay joogaanba aan ku gaadhsiino in la ilaaliyo ama la xifdiyo qur-aanka kariimka oo aynan dadkeena ama jiilka uga dambeeya ay isku noqoto qori isku dhiib oo caruurteenu aanay social media wax kala ugu badan meel kasta wax kala la geliya laakiin ujeedadaan leenahay waa in diinta islaamku ay awoodeysato idaacad gaar ah u sameeyay idaacada kale waa idaacadii radio Hargeysa waxay u gaar tahay wararkii barnaamijyada iyo wixii kale laakiin idaacad gaar ah ay xukuumaddu u sameeyay waa ka go'naanshiyaha diinta islaamka in la kobciyo la hormariyo waxa kale oo iyadana aanu sameeynay inaan tayeyno oo qorshaha noogu jira inaan tayeyno shaqaalaha iyo howlgallada ka howlgalaya idaacadda quraanka anagoo kor u qaadayna xirfadahooda ay ku shaqeynayaan iyo aqoontooda saasba waxa weeyaan xukuumaddu inaanu adkayno xoojino horumarino idaacadda quraanka hadii la yiraahdo halkay taagan tahay meel ka sareeya haday noqoto dhankii farsamada haday noqoto dhankii shaqaalaha iyo haday noqoto dhankii baahintaba intaba waxaan naga go'an inaanu إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا كدغيسو إذا عد قرآن كريمك راديو هرقيسا عاصمة هرقيسا 8.8 FM مقالة برعو 8.4 FM magaalada Boorama 8.6 FM magaalada Berbera 8.3 FM magaalada Ceerigaabo 8.6 FM magaalada Laascaanood 8.6 FM magaalada Gabiley 8.6 FM ku xidhnow oo ka faa'iideyso idaacadda quraanka kariimka ee radio Hargeysa si aad uga barato aqoon anfacda naftaada aakhiradaada iyo adduunkaagana aad ku liibaanto